Ku soo dhawow warbaahinta Bourda Media. Warbixinteennan maanta waxaynu kaga hadli doonaa saxafiyadda Jamiila Maxamed oo ka soo jeeda dalka Somaliland kana hawlgasha warbaahinta dalka Kenya. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelkayaga subscribe saar, siina share garee muuqaalka si uu dad badan u gaadho. Mahadsanid. Jamiila Maxamed waxay dhalatay sanadkii 1981. Waxay ku dhalatay ismaamulka Kajiado ee dalka Kenya. Waxay waxbarashadeeda dugsiga hoose iyo ka sareba ku qaadatay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Waxay jaamacadda Nairobi ka bilowday barashada saxaafadda iyadoona Master Degree saxaafadda ah ka qaadatay. Jamiila waxay ka hawlgashay warbaahinta kala duwan oo ay ka mid yihiin raadiyo iyo TV laga leeyahay dalka Kenya sida TV-ga NTV iyo weliba TV-ga Citizen oo ay hadda ka mid tahay. Jamiila ayaa marar badan safar ku tagtay Somaliland oo ay ka soo jeedo deegaan ahaan, iyadoona warbixino ka diyaarisay horumarka Somaliland. Jamiila waa hooyo haysata 5 carruur ah. Jamiila waxay kaalmaha hore kaga jirtaa 10 saxafi ee ugu wanaagsan uguna mushaharka badan dalka Kenya. Jamiila waa tafatiraha wararka ee TV-ga Citizen qaybtiisa afka Swahili-ga. Intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa warbaahinta Bourda Media idinka diyaarisay saxafiyadda Jamiila Maxamed. Fadlan daawada hanaga ilaawin subscribe-ta, share-ta, like-tana saar muuqaalka si uu dad badan u gaadho. Mahadsanid.